bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal halkani waa radio kulmiye kusoo dhowaada qodobada wararkan idin hayna maanta kuwooda ugu waaweyn. loolankii ugu adkaa ee aayaha galmudug oo ka soconaya dhuusamareeb iyo shirarka halkaasi waqti badan qaadanaya. ciidamo la sheegay inay kala taabacsan yihiin maamulkii ahla sunna iyo madaxweyne xaaf oo isku harfadhiya gobolka galgaduud. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo qarka u saaran in la casilo. qarax ay askari ku dhinteen oo ka dhacay deegaanka Weydow oo magaalada Muqdisho duleedkeeda ku yaala. saraakiil hore uga tirsanaa nabad sugidda Soomaaliya oo sheegay in lagu amray ka guurista guryaha u dhow xarunta hay'adda sirdoonka qaranka. milatariga Soomaaliyana al-shabaab ayuu kala wareegaa deegaano ay ku sugnaayeen oo ku yaala gobolka Shabeellada Hoose. dawladda Soomaaliya oo heshiis la gashay shirkado ajaaniba oo ka shaqeeya shidaalka iyo macdanta. Venezuela oo sii deynaysa maxaabiis lagu qabtay dibadbaxyada dalkaasi ka dhacay. iyo Iiraan oo jawaab adag ka bixisay hanjabaadii Donald Trump. markale ku celi warbalii waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beenraad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa haddaba intaas waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa iminkana kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran wadajir waxaa idinkugu warramaya duhurkan burhaan diini faarax iyo anigu xawluul cubayd warka waxaa soo saaray cabdiqani cabdulaahi taariikhduna waa 22 bisha 6 ee Juun sanada 2019. kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo fidsan aynu ku bilowno xaaladda gobolka ama maamul goboleedka Galmudug. loolankii ugu adkaa ee ku saabsan aayaha maamulka Galmudug ayaa waxa uu ka taagan yahay magaalada Dhuusamareeb waxaana sidoo kale waqti badan qaadanaya shirarka la doonayo in xal looga gaaro arinta maamulka Galmudug. warar uu radio kulmiye helana waxay sidoo kale sheegayaan in ciidamo kala taabacsan maamulkii ahla sunna iyo madaxweyne xaaf ay isku horfadhiyaan deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud gaar ahaan meel u dhow Mereer Gur halka la yiraahdo. ciidamadaas ayaa ka tagay dhinaca Gaalkacyo waxayna ku socdeen Dhuusamareeb. wararka qaar ayaa sheegay inay doonayeen in magaalada Dhuusamareeb ay ka kaxeeyaan madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf. wararkii ugu dambeeyay ee Galmudug waxaa si dhow ula socday wariyaheena Cabdiqani Cabdulaahi Ibraahim warkan ayuu nooga diyaariyay. markan loolanka loogu jiro go'aanka ugu dambeeya ee ku aadan doorashada Galmudug ayaa isugu aruuray magaalada Dhuusamareeb oo kulamo aan loo kala kicin welina isafgarad buuxa laga gaarin uga socdaan wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya iyo hoggaanka Galmudug. waxa ay la wareegyada ka aagdhow madaxtooyada Galmudug inoo sheegeen in laga soo bilaabo shalay girinkii dambe ilaa iyo hadda kulamada ay ahaayeen kuwa u dhaxeeyay wasiirka halkaasi tagay madaxa xukuumadda Galmudug iyo Macalin Maxamuud gudoomiyaha guud ee Ahlu Sunna wal Jamaaca. dadka falanqeeya arrimaha Galmudug iyo khilaafka kala dhaxeeya madaxda dawladda ayaa ku warramaya in xaaf uu qarka u saaran yahay in keligii uu ku noqdo go'aanka ay kaga soo horjeedeen doorashada Galmudug in dhawaan la qabto. waxay u sababeynayaan in tagista Dhuusamareeb ee wafdiga dawladda uu xaaf shalay diidanaa weliba ciidan hor istaaga uu garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb geeyay balse ay rabitaankiisa hor istaageen Macalin Maxamuud gudoomiyaha guud ee Ahlu Sunna iyo madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir kuwaasi oo faray in wafdiga loo ogolaado magaalada ku dar oo shirarka ilaa iyo hadda dhacay ayuu xaaf dibad joog ka yahay sida aan ka soo xiganay xubno ka tirsan madaxtooyada Galmudug. dhanna weli uma dhicin go'aanka la isku hayo ee qabashada doorashada maamulkaasi. madaxweyne xaaf ciidamo la sheegay inay taageero u yihiin una soo socdeen ayaa ka soo baxay magaalada Gaalkacyo ee Mudug aroortii hore ee maanta. waxaa markii ay ka soo gudbeen magaalada Cadaado kuna soo dhow yihiin Dhuusamareeb ka hortagay ciidan kale oo dadka halkaasi jooga inoogu sheegeen inay taabacsan yihiin maamulkii Ahlu Sunna. labada ciidan ayaa isku horfadhiya deegaanka Mereer Gur ee u dhaxeeya Cadaado iyo Dhuusamareeb waxaana ciidankii xaaf taabacsanaa la socday xubno uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda Galmudug Saciid Siyaad oo goordhow gaaray magaalada Dhuusamareeb. Saciid Siyaad ayaa ka mid ah wasiirada xaaf aadna ugu taageersan waxyaabaha la isku hayo shir gaar ah ayaana haatan u socda. siyaasadda Galmudug ayaa ka mid ah meelaha ay aad ugu loolamayaan dhinacyada danaynaya siyaasadda guud ee dalka oo xitaa xisbiyada siyaasadeed ayaa warka soo saaraya. xildhibaanada labada gole ee deegaan doorashadoodu tahay maamulkaasi ayaa sidoo kale ku kala aragti duwan marka laga soo tago Cabdi Qeybdid iyo Mahad Salaad oo Gaalkacyo hadal ay ka jeediyeen ku taageeray xaaf ayaa xildhibaan Zakariya Xasan Gaashaan oo Muqdisho jooga wuxuu si kulul u eedeeyay Macalin Maxamuud oo ah gudoomiyaha guud ee Ahlu Sunna.
galmudug saa la socotaan waxaa jira wafdi ka socda federaalka oo uu wado wasiirka arrimaha gudaha maamulka galmudug waa maamul ka tirsan maamul goboleedyada ama dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka wuxuuna leeyahay xuquuq kasta oo ay leeyihiin maamul goboleedyada waxaana ka mid ah inay doorashooyinkooda iyo maamulkooda iyagu ay xor u ahaadaan oo dawladda federaalka ahi aysan maaragtay wax shaqaa ku lahayn inay iyagu doorashadii qabtaan ama sida ay u dhacayso doorashada ay iyagu u yeeriyaan maamulka galmudug waxaa madaxweyne ka ah madaxweyne xaaf isagaa laga rabaa marka inuu dadkii deegaanka iyo siyaasiyiintii gobol ka soo jeeday markii xaalad sidaan oo kale ay timaado inuu inta isugu yeero uu la tashi la sameeyo maamulka galmudug ma ahan meherad qof leeyahay oo lagula gorgortamaayo waxaan ula jeedaa macallinka jooga dhuusamareeb wax isagu uu gaar u leeyahay oo lagula gorgortamayo oo federaalku oo ay kaga iibsanayaan siyaasaddii gobolka ma noqon karto galmudug ayaa isha lagu wada hayaa miyay xukuumadda soomaaliya mar kale guul la mid ah midda koonfur galbeed ka gaari doontaa halkaasi mise way ku adkaan doontaa in ay qanciyaan xaaf iyo xubnaha la safan ee garabka u ah waa su'aasha taagan ee la sugayo dhanka ay arrintu noqoto xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa qarka waxay u saaran yihiin in la casilo kadib markii lagu eedeeyey inay xaadiri waayeen fadhiyada baarlamaanka axmed maxamed ibraahim warkan haynoo faahfaahiyo waxaa maanta mar kale guntilaan u baaqday kulanka guud ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya uu ku yeelan lahaa magaalada muqdisho kadib markii ay xaadireen howlka shirarka xildhibaan si loo helo kooram dhammaystiran kulankii maanta waxaa ka dhinaa 16 xildhibaan kuwa oo tirada guud uu ku furmi karay kulankii maanta ay ka dhigi lahaayeen 139 xildhibaan waana halka loo baahnaa howlka shirarka ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa laga dhex sheegay in xildhibaanada ay wacdaan saaxiibadooda jooga magaalada ee ka maqan kulanka si ay u dhammaystiraan kooramka guud balse ma aysan dhicin sida kulankii ayaa baaqday gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo kooram la-aanta ka xariirsan ayaa ku amray habdhooryaasha golaha shacabka in tirada xildhibaanada ay ka maqan kulankii maanta ay ku wareejiyaan guddiga anshaxa ee golaha shacabka si ay go-aan ugu gaaraan xildhibaanadaasi wakhtiga uu qorayay xeeroosaadka golaha shacabka waa la joogaa kooramku wuxuu marayaa 123 wax horaan u xaadirnay wax la xaadirinayo ma jiraan waana la ogyahay markaan xaadirin uma baahnay waxay u baahan tahay ficil marka waxaan amraynaa nidaamyaasha inay ku wareejiyaan liisaska ay hayaan guddiga anshaxa maadaama kooramka uusan dhammayn fadhiga annaga ma furmin sidaa daraaddeed waa kala tegaynaa insha allah zakariya maxamuud xaaji cabdi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay go'aanka guddoonka golaha shacabka uu ka gaaray xildhibaanada ka maqan kulamada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kuwaas uu ku sheegay in laga casilayo xilka xildhibaannimo intii uu ku furmi lahaa waana markii saddexaad baan u malaynayaa wiiga kan oo ay arrintaasi dhacday 125 bay ahayd maanta 123 weeye gudoomiyuhu wuxuu gaaray go'aan baarlamaanka xeeroosaadkiisa in lagu shaqeeyo sidaa darteed xildhibaanadii maqnayd waxaa loo gudbiyey anshax guddiga anshaxa loo gudbiyey wixii xeeroosaadku sheegahayo oo ciqaaba casiraad maaya casiraada ayaa lagu qaadi doonaa anugu waxaan la jiraa go'aanka guddoonka sababtu waxa weeye baarlamaankan wuxuu wakiil ka yahay shacbiga soomaaliyeed oo dhan 20 milyan buu wakiil ka yahay duruufta dalku marayo waad ogtahay in shacbiga soomaaliyeed mushahar laga qaato ama allowances laga qaato dulna laga qaato oo aan la soo xaadirin xildhibaankii ku maqan shaqo ama cududaar ama fasax waa meeshiisa wax soconaya maaha waxay noqonaysaa mas-uuliyaddii loo idmaday baarlamaankan inuusan ka bixin bay noqonaysaa tan iyo ka soo laabashada golaha shacabka fasaxa ciidda oo ay ku maqnaayeen muddo kooban ayaa maanta waxaa koromlaan u baaqday kulankii saddexaad ee golaha shacabka uu yeelan lahaa arrintan ayaa lagu tilmaamay inay tahay mid aanan la dulqaadan karin maadaama isla xisaabtan buuxa aysan ka jirin halkaasi saraakiil horey uga tirsanaa hay-adda nabadsugidda soomaaliya ayaa la sheegay in lagu amray inay iskaga guuraan guryo u dhow xarunta hay-adda sirdoonka qaranka ee habarqadiijo loo yaqaano waryaheena farxaan maxamed xuseen ayaa warkaana inoo faahfaahinaya ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa Amisom ayaa maanta waxay ka saareen askar iyo saraakiil deganeed guryihii saraakiisha nabadsugidda qaranka Soomaaliya laguna magacaabo taango kuna yeela dhabarka dambe xarunta ugu weyn ee ciidamada NISA Habarqadiijo askartan iskugu jirta kuwa NISA iyo Amisom ayaa aroortii hore saaki ku kalaaya xaafadda waxayna dadkii deganaa oo ay ka mid ahaayeen ciidamada dowladda ku amreen inay ka guuraan qaar ka mid ah askarta ka tirsaneed ciidamada nabadsugidda
balse lagu biiriyey booliiska Soomaaliya oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa u sheegay in askarta ka tirsanada hay'adda nabadsugidda gaar ahaan kuwa waran iyo askarta Amisom ay saaka kula dhaqmeen qaab aan wanaagsanayn waxayna sheegeen in aysan haysan goobo kale oo aadaan maadaama meelaha qaar aysan ku noolaan karin sababo la xiriira amnigooda haween ka mid ah saraakiisha nabadsugidda balse lagu biiriyey booliiska Soomaaliya kana mid ahaa dadkii lagu amray inay ka guuraan guryaha ayaa idaacadda Kulmiye sidan u sheegay guryaha saraakiisha bilayada wax sarkaal aan ahayn qofka ugu yar waa laba xidiglaha tama degan gaashaan wasariyal general badin xasan ninama general ha degan general nin aha aanay saraakiisha on lahaynaan hay waa nala soo laga nambar maroogsaday waa ciidan baa nala duleeyay waan dhees ciidamada baabuurta iyo waan dheeskii waxaan ugu xeeran saaka ilmahan quraaw ma karsanin oo waxa la wax galay wax baxay male ilaahay kuma darnaaday xaq deertana waxaana laga barbaray hildhibaano intay ciidankan ay la hadleen waxa la yiri alaabtooda mas ilmo waxa kala baxaan dadkan alaabna wax hal baa madow kala ma qaaday alaabe aniga saddex aruur ay mid walaalkay dhala ii joogo agoon saddexdan agoon way aqoon mar dhow dhintay meel guuri meel aad malha wax aan haysabay ilaahay wallahi laamigan ay taagan yihiin saaka marka waa saaka dugsiga inuu jiraan ay u maleeyay anaga meeshan waaga bashir goob nala soo dejiyay khayr Allah anaga oo saraakiil wada ahaa nala soo dejiyay qof kasta gurigiis inta aruur haysto lagu qoray warqadan ku deganahay warqadii baan haysana wallahi aan ku dhaartay inuu qofna la hadlin male saaka xalay horta waxaan ka cabanaynaa iyadoona digniin la siin oo ciidan naga soo kordaadiyay anagoo saraakiil ah oo meel kasta aadi karin oo meel walba meel kasta oo lagaaga horeeyo nabadiidka joogo la ogyahay haddana aan digniin la soo siin oo dhin guriga raadsada haddaraasiin oo heshiin sabacdi aad heshiin oo nala siin mudnaan dhulka nugula jiida aad baan uga xunaa aad aan uga cabaadayna goorma leedin imaaday saaka aroorti 12 saac aan uga soo dheelmada anagoo salaada dukowli yaa idin imaaday marka ciidamo warana oo dhar cagaaran uga soo daadsay xala ilaa qalqal hatta xala ma naseexan qofka ina loo soo sheegal rabo isdiyaariyo qornatood 7 bil la siiyo 2 bil la siiyo lacagtii meeligiiba ma haysan gaariga ku raaci lahayn 29 iswaay 29 qoys oo macnaha qofkii guri degan oo wada saraakiil hal qof oo shacab ayna degan oo wada saraakiil hal qof oo shacab oo isku jirin dadka laga raray maanta guriyada saraakiisha nabadsugidda qaranka ayaa waxa ka mid ah caruur iskugu jirta agoon iyo rajo kuwa oo waalidkooda ay dileen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab iyagoo u shaqeynaya qaranka haatana laga saaray guriyihii ay deegaansanayeen iyagoo aan haysan goobo kale oo ay naftooda ku aaminaan waxaa goordhow qarax miino uu ka dhacay deegaanka Weydow ee duleedka Muqdisho xilli ay marayeen askar ka tirsan militariga Soomaaliya sida ay dad goobjoogayaal kulmiye la hadlay sheegeen waxa qaraxa uu haleelay gaari ay wateen askar ka tirsan xoogga dalka waxaana ka dhashay dhimashada 3 askari iyo dhaawac askar kale oo ay arkeen dadkii goobta ka agdhawaa inta badan qaraxyada miino ayaa noqday kuwa ka dhaca wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye shirkadaha Shell iyo Exxon Mobil ayaa wasaaradda macdanta iyo batroolka xukuumadda Soomaaliya la saxiixday heshiis ay dalka dib ugu soo laabanayaan muddo 30 sano ku dhow oo ay ka maqnaayeen dalka sida ay qortay wakaaladda wararka Soomaalida Sona oo soo xiganaysa wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Cabdiqaadir waxa wararku ay sheegayaan in shirkadahan ay ka shaqeynayaan sahminta shidaal iyo sidoo kale baarista macdanta waxaana ay ka mid ahaayeen shirkado horey dalka uga shaqeyn jiray waayihii ay shaqeynaysay xukuumaddii kacaanka militariga Soomaaliya ayaa al-shabaab kala wareegay deegaano ay kaga sugnaayeen gobolka Shabeellada Hoose sida warkan uu ku soo diray Axmed Abuukar Sabriye howlgal qorshaysan oo ay aroortii hore ee saakay ka bilaabeen ciidanka danab oo si gaar ah u tababaran qaybo ka mid ah Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaanada dhaca dhinaca xeebta ee hoostaga magaalada Marka ayaa waxa ay ku qabsadeen gacan ku haynta deegaanka Ceelsaliin oo ay muddo badan maamuleysay al-shabaab deegaanka Ceelsaliin lagu magacaabo oo ay maanta danab la wareegeen waxa uu 20 kiiloomitir u jira magaalada Marka oo xarun goboleed u ah Shabeellaha Hoose isagoo ka xiga dhinaca waqooyi al-shabaab oo gacan ku haynta deegaankaas maamuleysay ayaa baneeyay deegaanka kadib markii sida wararku ay sheegayaan ay ka war heleen inay halkaasi ku wajahan yihiin ciidanka xoogga dalka dawladeedna ay sidaasi ciidanka danab bilaa dagaal ku qabsadeen Ceelsaliin intaasi kadib ciidamada danab ayaa deegaanka ka bilaabay howlgallo amni xaqiijin ah
oo ay qayb ka tahay miino baaris, waxaana ay dhaqdhaqaaqooda ciidan kusii baahiyeen meelaha duleedka ka ah deegaankan oo ay maanta kala wareegeen al-shabaab. sidoo kale wararku waxa ay intaasi ku darayaan in ay ciidanka danab ku wargeliyeen shacabka inaysan baqdin muujinin oo ay amnigooda xaqiijin doonaan, ayna u muujin doonaan garab istaag dhan weliba oo nolosha ah, balse taasi beddelkeeda ayay ciidanku ka dalbadeen shacabka in ay la shaqeeyaan si loo adkeeyo ammaanka deegaanka. ciidamada danab ayaa deegaano badan oo muhiim ah kana tirsan gobolkan Shabeellaha Hoose kala wareegay al-shabaab, kuwaasi oo isugu jira deegaano hore ee amisom iyo ciidanka dowladda kala wareegeen al-shabaab kadibna soo baneeyay oo dib ugu laabtay gacanta shabaab, iyo kuwo cusub oo ay noqotay in ciidanka danab ay markii ugu horeysay kala wareegaan al-shabaab kadibna fariisimo ka samaysta, iyadoo howlgalka maantana uu qayb ka yahay kuwa ay ciidanka danab ku qabsadeen deegaanada aan horey looga saarin al-shabaab ee ka tirsan gobolka. Axmed Abuukar Sabriye, idaacadda Kulmiye, Afgooye. axmed waa mahadsan tahay. aan markaana dib ugu laabano wararkii ugu dambeeyey ee galmudug. waxaa dhuusamareeb ka soconaya shirar goonigooniya inkastoo wafdiga dowladda ee tega dhuusamareeb aysan weli la kulmin madaxweynaha galmudug. sidoo kale waxaa warar kala duwan ay kasoo baxayaan xaaladda ku saabsan ciidamada ka tegay magaalada gaalkacyo ee Mareergur aageeda jooga, oo dabcan wararkii ugu dambeeyey aanu ka wareysanay wariyaheena Sharmaake Suule. ka yimid gaalkacyo oo soo gudbay cadaadana soo gaaray deetana sii gudbay waxay joogaan caratuurka maaragtay goob ku dhow oo wax yar u jirta. ciidankaasina sida ii sheegeen saraakiishooda goordhoweed meesha ugu tegay waxay ii sheegeen dhuusamareeb inay u socdaan. gawaaridu waa 10 baabuur oo marka lagu daro kuwa cadaado oo maaragtay kasoo raacay oo iyaga la socda. waxay ii sheegeen inay gudbayaan gebigoodba oo 10kooda baabuurba ay gudbayaan, isla markaana wada hadal iminka uu socdo iyagoo doonaya maaragtay ii sheegeen dhuusamareeb inay u gudbaan. Sharmaarke, hadda sidaad xogta ku hayso ciidan kale oo ciidankan gaalkacyo ka yimid hor fadhiya miyaa jira? sidaas markii hore naloo sheegay waxaa la sheegay ciidamo ka yimid dhuusamareeb oo 6 baabuur ay joogaan Mareergur meel ka shaysa. deetana mar dambe la yidhi ciidamadaasi way noqdeen, laakiin ma xaqiijin karaan ama indhahaygana kuma arag. laakiin waxaan arkay cabdqaniyo ciidamadan in maaragtay ciidamadan gaalkacyo ka yimid iyo kuwan sii raacay oo sii galbiyo xaggeeda ka raacay isla markaana la socda. waxayna ii sheegeen inay dhuusamareeb u socdaan. ayaga saraakiisha qaar ka mid oo la hadlana waxay ii sheegeen inay jiraan xogta ku saabsan ah in ciidamo kale ay halkaas yimaadeen dibna loo celiyey, laakiin ma jirto ilo kale madax bannaan oo noo xaqiijiyey. waryaheena Sharmaake Suule ayuu ahaa oo cadaada jooga. dabcan wararkii ugu dambeeyey inoo sheegay. hadba wixii kusoo kordha dhegeystayaal xaaladda ee ka taagan galmudug waxaad ku maqli doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ama isha ku haya boggeena radiokulmiye.com. halkaas ayaan ku qori doonaa iyo baraheena bulshada ee xawlul. warka duhur ee raadiyo kulmiye ayaad la socotaan. wararka dibadda ayaana inoo soo socda. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegay inay jawaab adag ay ka bixin doonaan cabsigelin walba oo kaga timaada dhanka Mareykanka. hadalka afhayeenka ayaa jawaab u noqonaya kadib markii uu madaxweyne Trump uu ku hanjabay in Iiraan ay burburin doonaan haddii ay xiisadda sii kordhiso. ma ogolaan doono qalalaaso walba oo ka dhan ah xuduudaheena Iiraan. waxa ay ka jawaabaysaa gardaro walba oo kaga timaada dhanka iyo Mareykanka ayuu hadalkiisii sii raaciyay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ninka la yiraahdo Abbas Muzevi. xiisadda u dhaxaysa Tehran iyo Washington ayaa meel adag waxa ay gaartay kadib markii Iiraan ay Khamiistii soo riday mid ka mid ah diyaaradaha wax basaasay ee dowladda Mareykanka. Tehran ayaa sheegtay in diyaaradaas oo ahayd nooca droonka loo yaqaan ay ku soo xadgudubtay dhulkeeda dalka Mareykankana waa halka Mareykankana uu ku adkaystay in ay dul meereysay hawada caalamiga ah. madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay Jimcihii inuu ka laabtay amar ahaa in la duqeeyo fariisimo ay Iiraan ku leedahay agagaarka marinka Hormuz la yiraahdo. ugu dambeyntiina Burhano Venezuela maxaa ka cusub? waxaa ka cusub madaxweynaha waddanka Venezuela ayaa sheegay inuu tixgelinayo codsi kaga yimid qaramada midoobay kaas oo ahaa sii deynta dhammaan maxaabiista lagu qabtay dibadbaxyada dalkaasi ka dhacday. haweeneyda madaxda ka ah hay'adda qaramada midoobay qaabilsan xuquuqda aadanaha Michelle Bachelet ayaa weydiisatay mas'uuliyiinta dalka Venezuela in la sii daayo maxaabiista la qabtay iyagoo dhigaya dibadbaxyo nabadoon ah waqti dalkaasi ay ka jirtay xaalad bini'aadanimo.
hadalka master bargelet ayaa imaanaya iyadoo ay soo dhammaatay booqasho 3 maalin ahayd oo ay ku tagtay magaalada caasimadda ee Caracas kadib casuumad ay ka heshay hogaamiyaha waddankaasi Nicolas Maduro oo ay ku furan yihiin mawjado siyaasadeed. sidoo kale madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa la kulantay qaar ka mid ah qaraabada dadka xiran oo dhammaantood ku eedeysan in ay ridi rabeen xukuumadda madaxweyne Maduro iyadoona dadka qaar la dilay intii ay socdeen dibadbaxyadii 2017. kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa Mr. Bargelet ku riixaya in la sii daayo 715 ruux oo u xiran arrimo dhinaca siyaasadda la xiriira. guud ahaan war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray oo doorkan raadiyo kulmiye muqdisho aad kala socoteen aqyaare waa naga inta cidii warkeena u dhaafay radiokulmiye.com